رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. أحاديث رمضان waa barnaamij aynu ku soo qaadan doonno qaar ka mid a axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta. عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد متفق عليه. sahal waxaa laga wariyey raalli allah ka ahaadee oo uu ka warinayaa nebiga sala allahu calayhi wasalama inuu yidhi jannadu waxay leedahay albaab rayaan lagu magacaabo oo ay ka galaan kuwa sooma cid aan iyaga ahayni ka geli mayso. waxaa la odhanayaa meeye soomanayaashii, markaasay soo wada istaagayaan. ka geli maayo albaabkaas cid aan iyaga ahayni, markay galaanna waa la xirayaa oo cidi ka geli mayso. bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo saaray. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين.